madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaabe Xuseen ayaa ka qayb galay shirka madasha wada-tashiga qaran ee uu shirgudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Shirka golaha wada-tashiga qaran ee dowladda federaalk iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta ka furmay madaxtooyada qaranka kaasi oo socon doona muddo 2 maalmood ah. Shirkan ayaa ku qotoma siyaasadda madaxweynaha ee lagu gaarayo Soomaali heshiis ah, waxaana diiradda lagu saarayaa qorshayaasha hortaminta u leh dowladda oo ugu horeeyo xoojinta wada shaqaynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dib u heshiisiinta dalka. Madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa shirkan ku faaqidi doona dhamaystirka dastuurka, xoojinta nidaamka federaalka, adkeynta amniga dalka, dhisidda garsoor sal adag leh, xal u helidda arrimaha abaaraha iyo diyaarinta hanaanka doorashooyinka dalka. Shirkan ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, Puntland Siciid Cabdulaahi Dani, Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaabe Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. Cabdiraxmaan Cali Diiriye Cabdiraxmaan Mideeye, Hirshabelle TV, magaalada Jowhar.